قال you mine قلبي قد كنت على every time قال you mine قلبي قد كنت على every time تبالك وين أني وان كايلة ورطة دير حتى لان كيلة خمس مكدير haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo Baris baa kadib waxa guri mid aabahay wuxuuna ii soo bandhigay shaqo mid kimid dadkii wada shaqeynaya maqnaan dhowr maalmood si darteed wax loo baahna qof shaqeeya sababtu aabahay shaqada soo bandhigay waxay ahayd dhammaan guriga ku xirnaan camera CC aniguna waxa ku takhasusay cilmiga kombiyuutarka aad baan u jeclaa shaqooyinka caynkan oo kale ah aabahay wuxuu sheegay ninkii inay sidoo $200 labadii maalin ba ka shaqeeyay shaqada inta kadib aabahay wuxuu ii kaxay dhanka guriga si aan ula kulmo ninkii markaan nimid gurigii waxaan la kulmay ninkii si fiicanna wuu ii soo dhabeeyay wuxuu iga xaalad bixiyay xaaladda guud ee guriga habeenada ka mid ah anigoo isticmaalaya kombiyuutarkayga ayaa waxaa la gaaray xilli saq dhaxa ah waxaan damcay inaan saxdo balse dib waxaan u soo laabtay dhanka kombiyuutarka si aan u hubiyo xaaladda guud ee guriga anigoo indhanaya waxaan arkay arrin argagax leh qof ka soo galaya dhanka daaqadda weliba xiran dhar madow aad baan u cabsaday waxaan eegay dhammaan qolalka kale si aan u hubiyo inuu ku jiro balse waan ka waayay si degdeg ah waxaan fariin u diray aabahay waxaan weydiiyey ninka guriga iska leh xilliga imaan lahaa guriga anigoo la yaaban ayaa waxaan arkay asigoo soo galaya dhanka qaybta qolka fadhiga wuxuuna xirnaa dhar madow inaan arko aad bay weli adkayd wejigiisa nasiib daro gacanteeda waxay ku dhacday agab meesha yaalay una dhacay dhulkii inta kadib ninku wuxuu muuqalay shanqar wuxuu seegay dhankay shanqarta ka soo yeertay anigoo afka ayaan isqabtay daqiiqado guda ninkii waa ka waayay meeshii balse aabahay firintiisa ayay soo gaartay wuxuuna ii sheegay ninka guri iska leh inay nus saac ka hor kala tagaan anigoo yaaban aad baa cabsanaya maxaa yeelay gurigan keliya ayaa joogay si lama filaan ah albaabkii soo gargaraacay ninkii albaabkii ayaan eegay dib ayaan usoo fiiriyay TV-gii waxaan arkay si albaabkii si xoog u soo gargaraacayo waxay u soo dhacay qorshe ah inaan ka soo baxo dhankayga daaqadii ayaan ka soo booday anigu zayd baan u soo caro maxaa yeelay waan cabsanayay ninkii ayaa soo wacay guri iska lahaa waxaan u sheegay inuu guri soo galay nin xiran dhar madow isku dayin inuu dilo wuxuu iga codsaday inaan ka soo carro halkaa wuxuuna ii sheegay inuu wici doono booliiska way yimaadeen balse waxay weydiiyeen inaan arkin ninka wejigiisa nasiib daro maxaa yeelay ninka wejigiisa maana arag guriga mugdi buu ahaa asagoo wuxuu naa dhar madow way ugu adkayd inaan arko wejigiisa channelka haddii aad ku cusub tahay oo fiidiyoyada noocan aad ka heshid mar walba ayaan soo dhignaa fiidiyoyadan subscribe sar oo beelka furo si aysan kuu dhaafin oo qofka ugu horeeyana aad noqotid 1960kii awoogay waxa uu socday tuulo si uu ula soo kulmo qaraawadiisa marba waxa uu u baahday inuu tareenada kalbadasho waxa uuna degay meel baadiye ah oo waxa uu duwaa buush bas boosteejadana cidna ma joogin hal wada ayaa ka bixisay oo baadiyaha u socotay meeshana waxba ma joogin cabaaran uu sugayay laakiin wax tareena ma imaan waxay ahayd winterkii waxa ay noqotay mugdi qabowna waa ay noqotay waxa uu bilaabayay inuu ka walwalo meeshuu seexan lahaa habeenkii markaas ayaa habar waxay ka soo baxday mugdiga wax ayna weydiisay inuu tareen sugayay markii uu yiri haa waxay tiri ma imaanayay ilaa biri waxayna tiri ma rabtaa meel aad seexatid waxayna tiri waxaan ku hayaa cunto iyo qol aad habeenkii seexatid asagana markaas waa u daalnaa waxuu dheelin ahayn wuu aqbalay boorsadiisa ayuu qaatay waa ayna israaceen waxa ay sii socdeen saacad oo waxa uu ku yaalay baadiyaha marka ay tageen awoogay zaa'id ayuu u daalnaa waa uuna gaajaysanaa guriga ayay galeen
waxa ayna daadhay habarta Feynuus cuntana way u karisay. Awoodii waxa uu dhamaystay maraqa waxaana yiri halkee seexanayaa. Qol biyaanada kore ku yaala ayay geystay. waxaan ku yaalay hal sariir iyo daaqad bas ayuu lahaa. waxa uu u mahadceliyey albaabka ayayna ku soo xidhay wayna ku loo garaysay. asagoo naxsan oo yaaban ayuu magaceeda u yeeray laakiin wax jawaaba ma uusan helin. waxa uu isiri subaxii wax ka qabo oo qalad ka dhacay ayay ahayd. kahor intuusan gam'in waxa uu baahday inuu isticmaalo suuliga uuna u soo kacay oo waa soo fadhiistay isagoo rajeynaya caagadii iyo inuu helo uu isticmaalo. sariirta hoosteeda ayuu gacanta geliyay isagoo isladay caagad taalo meeshaas ku jirisa. gacantii ayuu geliyey isagoo raadinaya caagadii laakiin gacantiisa waxay u tagtay wax uusan filayn. cabsi ayaa isaga gashay waa u booday wuxuu aaday daaqada laakiin daaqada musbar ayaa ku xirnaa. wuxuu ogaa hadduu qolka kusii jiray in asagana la dilayo. wuxuu ka fekeray inuu daaqada jabiyo laakiin wuxuu isiri haddaad jabisid naagta way ku maqli kadhaa oo wayna kaa soo gaari kadhaa inta aadan ka bixin daaqada. wuxuu sameeyey wixii keliya uu awooday. meydka sariirta hoosteeda ku jiray ayuu waxa uu soo saaray sariirta korkeeda go'ay ayuuna hoosgeliyey. isaga ayaana sariirta hoosteeda ku dhuntay. ku dhowaad saacad ka bacdi John waxa uu maqlay sharqan caga ah oo jaranjarta soo koriso oo qolkii u soo dhowaanaysa ilidiisa. sakatuuradii waa la furay albaabkina aayar ayaa loo soo furayay. waxa uu maqlayay qof sariirta dhankeeda u soo dhowaanayo. qofkiina waxa uu bilaabay inuu bir la dhaco meydkii uu saaray sariirta. birtina dhulka ayuu qofka ku dhuftay. albaabka ayuuna ka sii baxay. qofka marka uu ka baxay qolka ayuu haddana albaabka sii xiray. awoogay sariirta hoosteeda waa uu ka soo baxay. waxa uuna qaatay birtii daaqada ayuuna furay. daaqadii markii ay furmatay waxa uu ka tuuray boorsadiisa daaqada waa uuna ka daba booday isagoo aanan ka fakarin wixii ka hooseeyey oo wixii ka dambeeyey baska walwalayo. wax dhaawacyo badan ma aysan gaarin. waa u kacay boorsadiisa ayuu qaatay waxaanu ka baxay guriga gadaashiisa. wuxuu arkay iftiin waxa ay noqotay laami iyo militari iyo baabuurtooda marayo. awoogii askarta waa ay qaadeen oo waxa la geeyey meel kale. ma uusan report garayn sababtoo ah waqtigaas hadduu report garayn lahaa isaga ayaa dembiga loo qabsan lahaa. ilaahay ayuu u mahadceliyey inuu soo fakaday. wuxuuna go'aansaday marka xiga uu soo booqanaya qaraawada inuu waddo kala qaadanayo. qalbigaad ku taala every time. qalbigaad ku taala every time. Tomalkwe ani wankayle ortaladeel xagga laankeele qamisla kadibka. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo.